waxaana naloo soo sheegay xalayto xildhibaan faarax in ay dileen weliba gaadhida ku jiideen nin kalena uu xidhan yahay ay doonayaan inay dilaan insha Allah ka soo reebeen maxaabiistii waxaa laga soo deyrinayaa xaaladda maxaabiista ee dagaalka lagu qabtay ee Soomaaliland ay qabteen oo uu ku jiro xildhibaan hore oo xaaladiisa aan ilaa hadda laga warqabin arrimahaas maxaad kala socotaan waxa weey Soomaaliland maxaabiista ay qabatay markay maxaabiista qabato way jirdishaa way garaacdaa way dishaa sida maxaabiist la qabtay oo dagaal oo lama dhaqanto waxay jabiyaan xeerka adduunka waxay jabiyaan sharciga islaamka oo qoraya in aan maxaabiista wax la yeelin hatta hadal xun aan lagu oranin ayay jabiyaan marka waxa la sheegay maxaabiistii meesha joogtay inay qaarna laayeen iyagoo nool oo video laga duubay la sheegay ba la hayo qaar iyagoo ay laayeen qaarna ay imika haystaan ay leeyahay waa leynayaan waxaana naloo soo sheegay xalayto xildhibaan faarax in ay dileen weliba gaadhida ku jiideen nin kalena uu xidhan yahay ay doonayaan inay dilaan insha Allah ka soo reebeen maxaabiistii halkee lagu dilay oo la idin sheegay xildhibaan faarax waxa lagu dilay baa maxaabiistii waa la qaado burca Hargeysa loo qaaday waxa loo qaaday Hargeysa faarax iyo nin kale laga reebay burca lagu reebay burca lagu dilay baa la yiri faarax ninkan kalena dawaan kulay waa dilayaan si abar hadii la soo hareen intaasana loo sheegay waxa waa mahadsan tahay arrinta anagu ma xaqiijin karna sida aad sheegtay dhawow daawada fadlan nagu soo biir oo follow garayso warbaahinta dhulmar media siina share gare muuqaalka si aan u helno saaxiib wanaagsan sida adiga kale mahadsanid dawade